wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha ayaa si rasmi u daafuray kulan wada tashi oo u dhexeeya wasaaradda qorsheynta iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah. Ujeedada kulankan wada tashi ayaa waxaa xooga lagu saarayay sidii dowladda iyo daneeyaasha horumarku ay isaga kaashan lahaayeen fulinta mudnaanaha qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad. Intii kulankaasi socday ayaa waxa ay ku soo bandhigeen mas'uuliyiinta waaxyaha kala duwan ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku deeqaha waddanka soo galay, sidoo kale xogaha ay soo saarto wasaaraddu iyo sida loogu go'aan qaadanayo. Ugu horreynna kulankaasi waxaa faahfaahin ka siiyey ujeedooyinka laga leeyahay kasoo qaybgalayaasha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Mustafa Cumar Faarax. shirkuna wuxuu ku saabsan yahay sidii aan u dhisi lahayn wada shaqayn wanaagsan oo wasaaraduna ay idin sheegto waxyaabaha iyo qaabka ajandahaygu yahay iyo qaabka strategy plan-kaygu noqonayo idina aan wixii comment-ah iyo wixii kala ah aan dhageysano qaadanana marka maadaama wada shaqayntaas aan doonayno inaan dhisno laga maarmaan bay noqotay in number 1 aan idinka la kulanno oo aan ogaano waxa qabtaan iyo wixii priority dalkuna maanta uu leeyahay national development plan uu yahay mid jira oo bilaabmay wixii horumar iyo xiriir aan ka shaqeynayna noqoto ku base gareysnaato national development plan. Simon iyo Marwa Saacdi oo ku hadlayay afka hay'adaha qaramada midoobay kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ayaa si diiran soo dhaweeyay kulanka wada tashi waxaana ballan qaadeen inay Soomaaliland ka taageeri doonaan fulinta qorshaha horumarinta saddexaad ee qaranka. runtii farxad bay noo tahay inaan wasiirku ku soo dhaweyno ama aynu kula kulanno shirkan aynu kula faguri doono sidii aynu isku kaashan lahayn sidan maxay hay'atay horeba u sheegay inaan wax wada shaqeysano inaan wax wada qabsano aad bay muhiim ugu tahay dadkan iyo dalkan intaba haddii aan la abuurin bay'ad ay ku wada shaqeeyaan development partners haday tahay UN haday tahay NGOs haday tahay dawladda waxba laga midho dhalin karo macnaha uu sida hadalkaygan waxa weeyaan sideen u abuurnaa bay'ad aynu ku wada shaqeyno oo maxay hay'atay saraaxad leh iskuna kaashano si dadkan iyo dalkan wax loogu qaban lahaa. So with that we look forward to today's discussions. I think it's going to be an interesting meeting. We look forward to that. And with that perhaps wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kahin Axmed ayaa isdul taagay horumarka ballaaran ee dhinaca amniga iyo xasiloonida ay ka gaadhay Soomaaliland isagoo si diiran u soo dhaweeyay hay'adaha kala duwan ee la shaqeeya. Wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Ali Shire ayaa isdul taagay in dawladda oo qura aan lagu eegin horumarinta dalka balse ay doorkooda qaataan hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaba iyo hay'adaha kala soo qayb galay qabanqaabada iyo abaabulka shirweynahan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin shirarka noocan oo kaliina waa arrin aad iyo aad maxaan ku dhahday loogu baahan yahay waxaana u baahan tahay inaynu kor u sii qaadno qaabka wada shaqaynta hay'adaha ama UN-ka ama European Union-ka ama hay'adaha kale international-ka halkan fadhiya waxaa lagama maarmaana dowladda Somaliland arrimaha horumarka ay ka gaadhay xagga nabadgelyada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarinta labadaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshada maxaan ku dhahday halkan fadhida maxaan ku dhahday hay'adaha caalamiga ee UN-ka iyo midowga Yurub iyo hay'adaha caalamiga kalaba ka socda waxaan ugu mahadnaqaynaa wada shaqaynta ay nala shaqeeyaan kaalmada ay Somaliland siiyaan. Markaynu ka hadlayno horumarka had iyo jeer waxaynu ka hadalnaa doorka ay ku leedahay dawladdu samaynta ama dhaqangelinta qorshaha qaran laakiin qorshaha qaran marka la qorsheynayo inta badan waxaad moodaa in laga tago doorka ay ku leeyihiin qaybta gaarka loo leeyahay iyo qaybta maxaan raday ururada bulshadu aad iyo aad bay muhiim u yihiin waayo waxaa jira dad fara badan oo iminka aqoon leh ambaba aqoon baan lahayn oo la fadhiya meel muruqooda maskaxdooda iyo aqoontoodaba iyo dhul fara badan oo aynu ka faa'iideysan lahayn oo inaan ka faa'iideysanin oo aynu u baahan inaan hawlgelino marka waxaynu ku hawlgelin karaa khayraadka fadhiya iminka inagoo taageera oo horumarina ururada bulshada ee dalka
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa ka waramay muhiimadii kulankaasi u lahaa waxaana wasiirku bogaadiyay dhammaanba ka soo qaybgalayaasha kala duwan ee madasha ku sugnaa. shirkan aan idinka codsanay inaan nagala soo qayb gashaana waxay ahayd in aynu xoojino wada shaqaynta xoojinteedana waxa weeye tallaabada koowaad in xog wadaag la yeesho oo aynu wada tashi yeelano oo mid waliba fikirka iyo xogta iyo curintu hayo aynu wadaagno fursadahana aynu wadaagno taxadiyada iyo challengeska inaga hor yimaadana aynu wadaagno oo aynu fududayno taas waa ujeedada labaad ee aynu shirkan aynu isugu nimid ta saddexaadna waxa weeye inaynu isku dhiiri gelino in shaqada aynu qabanayno ee muhiimka ee horeba Somaliland ugu qaban jirteen ay ku salaysnaato qorshaha horumarinta qaranka oo activity kasta ama shaqo kasta aynu qabanayna ay ku salaysnaato qorshaha horumarinta qaranka qorshaha horumarinta qaranku waa hagaha guud ee inahagaya ee qof waliba uu meel ka soo gelayo waxaan u balanayaa dhammaanteen inaynu wada naqaano qorshaha horumarinta qarankana waxa haga hiraalka Somaliland ee 2030 Somaliland 2030 vision baa inahagaya oo ah Somaliland inay noqoto dal xasiloon oo dimuqraadi ah oo barwaaqo ah oo ay dadkiisu ku naaloodaan nolol heel sare markii aanu eegnay waynu arki doonaa markii aanu eegnay visionka ama hiraalka miyaynu gaadhnay laba meelood si fiican bay Somaliland ay kor ugu kacday ta koowaad oo ah nabadda iyo xasiloonida iyo talabaad oo ah dawlad ay dimuqraadiyadu hagto ta ay Somaliland weli ay dhutinaysaa waxa weeye freeska ah inay Somaliland noqoto dal barwaaqo waayo Somaliland xagga dhaqaalaha figuriska caalamiga iyo meelaha markaynu eegno Somaliland sanadkii 2022 waxa lagu qiimeeyay inay tahay dalka shanaad ee Afrika ugu xasiloon ugu nabdoon dimuqraadiyadana inay tahay dalka 25aad Afrika laakiin xagga dhaqaalaha ay ahayd dalka u hooseeya saddexda arrimood ugu muhiimsan shirkeenan inooga soo baxay waxa weeye in aynu resource mobilization ama maalgelin sida aynu ugu helayno qorshaha horumarinta qaranka inaynu ka wada shaqeyno gaar ahaana wadaagayaasha waa sectorska wadaagayaasha mudnaanta ah ka labaadna waxa weeye in aynu helo xog ku filan oo lagu kalsoonaan karo in aynu u helo inaynu kolba isqiyaasno meesha aynu marayno waayo haddii aynaan aqoonin halkaynu taagannahay odhaha baa jirta odhanaysa haddaanad aqoonin halkaad taagantay meeshaad u socoto ma garan karaysid markaa xogtaana aynu abuurno ta kalena waxa weeyaan sidii aynu u samayn lahayn wada shaqaynteena aynu xoojin lahayn inagoo ka bilaabayna kulanada iyo xoojinta Somaliland Development Forum waan jecelahay in aynu ka wada shaqayno hawlahaas oo dhan waxaynu ku gaari karnaa marka xog wadaag markaynu yeelano